بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ku sugannahay isbitaal ku yaala magaalada Gaalkacyo. waxaan ku soo booqannay maama Asili Gaadiid. Asili waa u jeedaan oo runtii xanuun baa ka muuqda, waxaana ku adag inay hadasho. Asili waxay ka mid tahay dadka muctarifka ka ah magaalada Gaalkacyo oo runtii aadka looga yaqaano. sidoo kale waxay ahayd hooyo gacanta ku haysa caruur agooma ah oo runtii xoog u ahayd. xanuun baa la soo dirsay ka soo wajahay dhinaca kaliyaha, meelo kala duwan ayay martay. hadda ugu dambeyntii isbitaal ku yaala magaalada Gaalkacyo ayay sariirta ku soo aruurtay. waxay u baahan tahay gacan bay u baahan tahay in la caawiyo. runtii faahfaahin kama ay bixin karto xanuunka sida uu hayo, way xanuunsatay u jeedaan, jirkeedana uu bararsan yahay. marka waxaan u dhiibayaa bal inay kelmado ay dadka uga codsanayso, kuwa yaqaan iyo kuwa kale Soomaaliyeedba ay ku caawinayaan. Asili maxaa u soo jeedinaysaa dadka ku yaqaan iyo kuwa Soomaaliyeed? dadka yaqaan iyo dadka aqoon ay soo caawiyaan u soo jeedinaya. markaasaan Allah caruur aqoon haysta wax awoodan ma jiro, dhowr meelood soo maray kaliya waan taaliin. marka waxaan rabaa in la soo caawiyo ilaahay yiraahdo mowqayga maqalkayga wixii yaqaanaba soo caawiya. Asili dad badan oo ku sugan magaalada Gaalkacyo runtii way garanayaan. ummadda Soomaaliyeed waxaan si naxariis looga codsanaynaa inay soo caawiyaan. ehelkeeda ayay la soo xiriiri karaan telefoonadooda ama telefoonada ay leeyihiin halkaas ayaan ku soo qori doonaa haddii Allah awood leh ogolaado. iyaga ayaana faahfaahin waxay ka bixin doonaan xanuunka haya iyo xaaladeeda sida ay tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا أسيل يوسف جديد ولا شيء وعلى ده فهم يوسف جديد ولا ليال وادو جدان أسيل دبك هايستا ويدي بنت هاي هندية لجيء كليها وافنش باليري كلي بدل هذا الغار باليري هدنا وحود أنا اللي مشرته أيضا واقف مسكين عيال أبوانا كنت حلقان أو كرسته أنا ونتور أن كلي صدني شنكون أو دار كوب حين ما هيسنا walaalahayna muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan caawimaad bili aadnimo mid muslimnimo iyo mid ehelnimo na soo caawiya.